Asalaamu calaykum saaxiibayaal kusoo dhawaada muuqaal cusub. Maanta waxaan qaadan doonaa markaas sidaad hore iga barateen application aad u qiimo badan. Marka applicationkan aan kusoo wado wuxuu kaa caawin doonaa inaad baratid koorsooyin aad noqotid markaa qof xirfado badan yaqaana. Maanta applicationkan waxaa focus ku saari doonaa markaa luqadaha programmingka loo yaqaano oo computerka ku tacalluqaan. applicationka aad ka baran kartaa markaa luqad walbo oo aad rabtid. Sidoo kale haddii aad rabtid inaad shahaado ka qaadatid applicationkan qayb lacag ayuu leeyahay oo sidaas ayaa shahaado uga qaadanaysaa. Kadibna waxaad helaysaa markaa shahaadooyin aad u sareeya oo meel alla meesha tagtid la aqoonsan yahay. Marka xaqiijinaysana inaad wax soo baratay. applicationka magaciisa waxaa la yiraahdaa Sololan, waana jiraan application kale oo lamid ah oo isaga sidiisa oo kale u shaqeeyaan. applicationkan ayaan maanta sar fiirin doonaa. Si aan soo degsado applicationkan waxaan soo galaysaa Play Store, kadibna qaybta search-ka waxaad ku qoraysaa Sololan. kadibna waxaa kusoo bixi doona qoraal badan wax ka dooranaysa kaliya Sololan. kuwan kale xitaa isaga ayuu ku geenayaa laakiin midka caadiga ayaa dooranaysaa. Ani hadda waa ii degsan yahay laakiin waxaa laga yaabaa inuu kusoo qoro qaybta install ayaa soo dhigaysaa kadibna open. marka applicationka marka ku wareyso sidan ayuu kugu soo baxayaa. wuxuu ku leeyahay markaa kala dooro gmailka miyaad ku galaysaa ama facebookkaaga miyaad ku galaysaa ama si caadi oo gmailkaaga inaad qortid ayaad gelinaysaa meeshaas. markaan hadda waxaan leeyahay gmailkayga ii door, continue with google ayaan leeyahay. kadibna waxaan ka dooranayaa midka aan rabo. hadda waxaan kala dooranaa markaa midka ugu koreeya. kadibna halkan waxaan kusoo saari doonaa wajahadani oo uu kugu weydiinaya markaa su'aaliye iska kooban oo ku saabsan markaa koorsada aad baran doonto. markaan waxaan leeyahay I know what course I want. kadibna wuxuu ii doon doonaa noocyada course ee meeshan ku bandhigan ama applicationkan laga barto. markaan waxaan leeyahay waxaan baranayaa introduction to C session ama waxaan baranayaa leeyahay introduction to C caadi. kadibna continue ayaan sii leeyahay. halkan wuxuu ku weydiin doonaa markaa imisa cashir ayaad maalinkii qaadan kartaa. qaybta koowaad wuxuu ku leeyahay 3 cashir ayaan maalinkii qaadan karaa camal dooro. qaybta labaad waxaan qaadan karaa 2 cashir. qaybta ugu dambeysa oo ah maalinkii waxaan ka bixi karaa 1 cashir. marka haddii aad beginner tahay waxaan kula talinayaa inaad dooratid 1 lesson a day. sidoo kale wuxuu ku leeyahay ii sheeg da'da aad jirtid. kadib let's go. marka halkan wuxuu ku leeyahay yani waxaad tahay ka dooro. markaan waxaan leeyahay midda labaad oo ah this is just a help for me. halkan wuxuu kugu soo koobi doonaa marka koorsadu waxay tahay waqtiga hal maalinkii inaad 1 cashir qaadanaysid iyo waqtiga aad dhameynaysid. marka continue sii dhah. kadibna bon april. halkan wuxuu kusoo bandhigaa marka inaad iibsatid qaybta lacagta ah oo proga. marka qaybtaasna waa iibsan kartaa. waxaa laga yaabaa inay markaa ku jiraan muuqaalo. qaybta freega ah wax muuqaalo ah kuma jiraan, kaliya waa qoraal. marka waxaan leeyahay hadda ma rabo oo cancel iska saaraya. haddii aad rabtid inaad iibsatid waxaad bilaabeyn kartaa markaa 14 maalin oo trial aad ku sameynaysid. 14taas maalin waxaad ku ogaan kartaa markaa inay websitekan ama applicationkani uu fiican yahay oo aad wax ka baran kartid iyo in kale. kadibna haddii uu ku anfaco waad sii gadanaysaa, haddii kalena cancel ayaad iska dhigi kartaa. marka kadib meeshan ayuu ku keenayaa oo ah wixii aad soo dooratay ama koorsadii aad soo dooratay introduction-keeda ayuu kuu soo saaraya. marka cashirkan meeshan ayuu kaaga bilaabay cashirkaagii koowaad. marka waxaad leedahay waxaan akhrisid ama aad baratid continue ayaad sii leedahay. sidaas ayaa cashirkaaga kusii wadan kartaa. marka hadda waxaan sii fiirin doonaa marka qaybihiisa kala duwan ee applicationkan. marka cancel ayaa iska leeyahay. halkan wuxuu ii soo saari doonaa marka shaqada maanta ii taalo, yani inaan barto what is C. haddii aan ku dhufto markaa cashiro badan ayaa igu soo bixi doono oo ah laga baahan yahay cashirada inaan soo dhameeyo maanta. marka qaybtan waa qaybta hadda aan joogo. learning ayaa lahaa qaybta hoose ee dashboardka. waxaan kasii tagaya marka hadda qaybta labaad ee community. community waa meel dad badan isugu yimaadeen oo aad ka heli kartid coach ama aad tartano ku geli kartid iyo waxyaabo badan. marka intaas ayaan kusii wadayaa. qaybtan waa ka gudbayaa.
qaybtan ayuu ku saaray iyagana oo la dhahaa leader. marka start iska dhah. qaybta iyadana waxaa waaye in dadka aad isla bartiin koorsada aad baratid dadka kula doorto ama kula midka ah ee koorsadaas kula barto yacni intay marayaan level nooce ayay marayaan meeshaas ayuu kuu soo muujin doonaa. hadda waxaan leenahay markaa koorsada markaa qaadatid ayaad arki doontaa levelka aad ku jirtid iyo meesha aad maraysid. marka hadda waxaan fiiri doonaa qaybta ay ku qoran tahay social. qaybtani waxaa waaye dadka ku jira ama isticmaalaya applicationkani iyo waxyaabaha ay qabtaan. marka waxyaabaha ay soo dhigeen qaybtan waxaa la markaa discuss yacni waxyaaba ayaa lagu kala wadaagaa oo haddii aad ku takhasusay ama aad xal rabtid in laga xaliyo. haddii aad rabtid markaa inaad kusoo bandhigtid ama aad ka mid noqotid qaybahani waxaad dhahaysaa new post. marka hadda new post mar inaan dhaho kasii soco isagana profileka ayaan imaan doona. yacni qaybtan waxaan kuusoo bandhigaa doonaa markaa waxaa qaybtan kuusoo bandhigi doonaa markaa levelka aad joogtid magacaaga. sidoo kale halkan waxaa ka noqon kartaa qof oo kusoo gudbiya haddii aad tahay qof khabiir ku ah koorsada ama programmingka. marka following hadda followerska waa 0 following waa 1 oo yacni aniga le follow isku ah. qaybahaas ayaa ugu muhiimsan. qaybta ugu muhiimsanna waa learning. yacni learningka waxaa ka baranaysaa koorsooyinkaaga meesha ay marayaan dhaqdhaqaaqa aad maraysay waxyaabo badan. marka intaas ayaan ku gudbinaa muuqaalkan. haddii aad ka heshay applicationkan waxaan kaa codsan lahaa inaad muuqaalkan like saartid sababtoo ah waxaan ku bixiyay waqti badan. sidoo kale haddii aad jeceshay waxyaabaha ku cusub ee teknolojiyada ee aad ka faa'iidaysan karto inaan kula soo wadaago waxaan jeclaan lahaa inaad subscribe saartid oo aad nagu soo biirtid anagana.